soo dhawaada barnaamijkeenna Gungaar oo aan ku dul istaagi doono macallinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka Banaadir kuwaasoo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen qaarna la hayo xogtooda oo lagu raad joogo magacyadiisa afgarashada ay kamid Daadir Xaaji Ilka Xudayfa iyo Cadaawe waxa uu ahaa howlwadeenkii ugu weynaa al-shabaab gobolka Banaadir waxa madaxa dilalka qorsheysan ee gobolka Banaadir horta asalkii Xudayfa aan ku group fara badan oo aan la soo fiirin markay beddelayna magacadan asmada group walba lagu soo bedel magac cusub waay Cadaawe la baxay Rakacasan la baxay Maxamed waxa uu kaga duwan yahay dhalinyaradii hore aan ku soo qaadnay barnaamijyada Gungaar waa macallin jaamacadeed oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda mana ahan wiil yar oo aan wax baran oo la marin habaabiyay haddaba inta aanan u gelin sheekooyinka Maxamed Xaaji Ilka Xase ee la xiriirta dhagridda bal aan marka hore eegno isagu waa kuma la fahantiisa ayaa noo sharaxaya Maxamed Xaaji heerarkiisa waxbarasho sidii kala dugsigii hore markaas aan ka soo baxay markaas oo idin kaga sheegaysan markaas oo culumta diinta aan ku soo baxay oo taxadka ay lahaayeen xaq diin ahaan markii la kutubada soo akhristay oo dhowr ay u badan yihiin rasaalihiinka iyo bilowga manaamka iyo tajriis waxaan kutubada tajwiidka iyo kutubada kala jihaadiga wax badan soo akhriyay سواء مش اللي يقدر تروح حافظ أقوال لومي لك مريض من حافظ القرآن حق دين تساسو مركب ديك سو صدق حاسو دمي ساعات كذا كون يسديد السوق صديق بس لا أكيد بكير حاسو بدي بقعد مركب قبل أو ديك سو سارة هقول 2011 لما كون يسديد يو كوي توانك إلى بتوقف الحسن أنا أخذت الجامعة عن صوغ لي لو طبعاً كلا يلحي طبعاً لقينا شهادة بي عن خاطئ كدي بوحان قالي مع إنجليش كله برتو مقال كعزبة فرونتير لها عنك خاطئ شهادة دبلوم إنجليش أسستنت أنا هي خاطئ مركي عنك صو أسستنت أنا سلاقي وحن أنت نخلو مع معنا إنجليش أكاديميك إنجليش عندنا مركا دولة كلا هذا جامعة مقدسة بلاوي ماستر environmental study halkan waa maxadka Frontier oo lagu barto luqadda Ingiriiska waxaana uu ka ahaa macallin Ingiriis Maxamed Xaaji Ilka Xase isagoo fasalkan ardayda kula wadaagi jiray duruus of preparation one of the international exams of the world. It's a center which provides and prepares IELTS preparation. I think in general East Africa we have only few countries that operates and prepares the IELTS and the TOEFL. Frontier became the very first college started preparing the method of macallinka dilaaga noqday Maxamed Xaaji waxa uu horjoogo ahaa shabakadii ugu halisaneyd al-shabaab ee Muqdisho ka geysata falal argagixisanimo waxaana sida ku xashaxda booliska gobolka Banaadir madax u ahaa qaybta dilalka qorsheysan ee shabakadan Maxamed Xaaji iyadoo uu ku xigeen u ahaa Sharmaaka Cumar Axmed oo loo yaqaan ugaaska ama ganay kaasoo ay hayeen xogtiisa iyo sawiradiisa booliska gobolka Banaadir ayna ku raad joogaan Ahmed Faarax Iidle oo magacyadiisa afgarashada ay yihiin Shuuriye Madoobe Nuunow iyo Ramadaan Cabdiraxiin Mursal oo la baxay Saalax waxay ka tirsan yihiin shabakadan dilalka qorsheysan qaybta istikhbaaraadka ama sahanka waxay ahayd shabakad kale oo ka tirsan kooxda Ilka Xase waxaana ku xigeen u ahaa dhinacaasi Saalim Saciid oo ay gacan yaryaal u ahaayeen Haashin Carab Faadimo Korneylo Maryan oo ah xaaska Saalim Cabdiraxmaan Sheeba iyo Cabdinaasir Axmed oo maqanayaal ay boolisku ku raad joogaan Maxamed Xaaji Ilka Xase waxa uu ka mid yahay dhalinyaro dhowr ah oo al-shabaab ah oo aan horay u soo wareysay kuwaasoo fikirka takfiirinta iyo xadjirka lagu soo baray dugsigiisa Quraanka taasoo ah halka uu kala jaaday al-shabaab fikirkan wuxuu yani fikir anigoo weyn ah waa ka yaraa macna markii
aan tusaalahan dugsiga hoose dhexe markaan dhiganayo dugsiga quraanka dhexe dugsiga quraanka aan dhiganayo wuxuu ahaa dugsi itixaad ay leeyihiin xiligaas dugsiga aqwaanka hal jir gobolka dhan waa looga imaan jiray marka la markaas ahaan xiligaas suufiya ku badneed magaalka iyo gobolka laakiin magaaladaasi waxa loo imaan jiray dugsiga la aqwaanka oo caan waa dadka bol mar dugsiga aqwaanka dadaaday ameel aan hada uu sheegi karo marka dugsiga waxa macallimiin oo ahaa banaman oo xiligaasi oo itixaad ka dagaalam jiray oo nin la dhaho macallin Suleymaan nin la dhigi jiray oo howlgaladii calal ka dhici jiray Itoobiya ku baxay maxamed xaaji ilka xasan shaqadiisu ka soo bilaabay magaalo xeebeedka marka oo halkii uu ku soo dhigtay dugsigiisa sare waxaana uu ku doodayaa in dugsiga sare uu soo dhigan jiray ay saameyn ku lahayd kooxda al-shabaab kuna soo booqan jireen horjoogayaal ka tirsan kooxda xiligaas dugsiga waxaa noogu imaan jiray waa xili hore sheekh Fuad waa nin iska yaraa xiligaas xoogaa da'ahana nin weyn u egyahay iyo aadan xaashi iyo nin la dhaho maxaa la jiray Cabdullaahi Salaad iyo Abu Zubair meesha noogu imaan jiray ma ka jirin xiligaas laakiin ilka xase waxa uu marka uga shaqayn jiray abjaajuusnimo oo isaga koox kale ay ka dhex shaqayn jireen inay macluumaad ka aruuriyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dawladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgelinta amniga magaalada Marko dawladdu marka meesha soo tashatay markii isoo galeen oo markii kor laga soo wareegtay calash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadayna ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarijiga isku bedelay dawladda imaaday daaqil uu ku soo baxay kan qaarijiga ana taasoo qaarij ayaa howlgala ilaa dadka ayaa yaqaan oo intaan ku soo koray mugta kii isbedelaayo kii jaasuus ah askartii dad cusub badilo keenay yaani dib way naqeen in loo tilmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisan hadana siriya waxa la jiray aan ku bilaabay hawshii ugu horeysay kooxdan wiilka xase ka mid ahaa ay Marko ka qabtaan waxa ka mid ahayd dilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Xaajow kaasoo ka shaqaynaya Xaajow bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay maxamed ilka xase in dilkaasi uu geystay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen Asad aan shakhsiyan aqaanu ahaa yani nin fiican oo ahaa dawladda u shaqeynayeen waxba muusan ahayn meesha station road ku joogay footadaas uu iska joogay famil ahaana yani waa dad aad loo yaqaan footada iyo sawirada dadkaas xiligaas gobolka dhan waa laga yaqaan sawirka dugsiga sare shahaadada xataa isaga yaqaan banaankan joogay oo meesha isaga station roadtiisa munishibi meel la ku tala sarta dheereed oo muxaadariin wax lagu qaban jiray anoo xagga taagan aan waxa arkaa anug oo marka dambe dhiman doono oo budbooda la dheey doono amesh taaganay Asad telefoon intuu qabto wuxuu dhahay waraan imanka wada carreen gabigooda wallahi fulay waay shaabti iyo wixii iyo kan budbooda wax muusan hubsan ninka ku bilaabay abaan marka xabad ina anaga soo wada orod meesha ka imaanay ninkii jiifa aragnay ninkan bas wala xariisana bas ninkii soo wadnay waxa dhaxsan uu dhahay ninka uu dhahay telefoon soo ku hadlay telefoonkiisa waa kaasa anoo meesha taagan uu dhahay nimanka soo galeen wuxuu gudbinay Asad markaas uu noolaa ana waa arkay ana paralyze uu noolaa yani meed ahaan uu soo tagay ninka laakiin markaas uu noolaa Asad marka dadka ma soo kaan yaqaanaan qaarkood si kale saaxiib waa una footada iyo wixii marka ma ku darsamin baana hadhow siisan fariis soo galin banaankan ka istaagay maxamed xaaji ilka xase waxa ka mid ahaa waxyaabaha cajiibka leh ee uu sheegay in markii magaalada Marko ay dawladdu la wareegtay uu la noolaa Jeneraal Ismaaciil oo caruurtiisa uu saaxiib la ahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulay sida caruurtiisa oo kale آخركينا وحاو مركي ومركا كدلي وهي وجنرال إسماعيل أحمد عثمان مكيالي كدلي سيديد يلباتنكي بشي تمنا سنة كي لبدي كوني اللحي طبانكا دقمدا وابري مقالة مقدشو نين وحال لي جري إسماعيل جاشان اللحي أها وعن وايس شنامنا عن كامركا كتار شيخ إسماعيل مركيالو دمقش نيك الهوا جنون لكن سيد بروها markii dawladda ay dadkii xagga markii shaabka ay qabsadeen asal
oo shaleemada laga burburiyo laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda uu soo hubeeyay dib loo sii jirnay waxa la jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shaleemada Ismaaciil guriga ku dhiganaa buu deganaa baan weligii magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waay adeer iska dhaha marka mugta ilmihiisa saaxiibana ninkii aameesh dadka qabtay ku mid ah marka Abdulqaadir Siidi isagii gurigaas qabtay ninkaasna waxa waay dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan ka mid ah isaga dhowr mar oo aan shakhsiyadii iga badbaaday oo aan gurigiisa bam ku tuuray ciyaarkiisa saaxiib waa ahayn hadda marka dambe intaan ku helay ninkii waxaas dhan way soo dhamaadeen waa la soo weynaaday jaamacada la dhameeyay dar hadda oo Muqdisho ku 2 sano ka hor iyo hal sano ka hor inay tahay jecel Liberian ku helay Ismaaciil asoo Interpol shaqeynaa booliska مود شن سنة لح سنة كسوريت إنك dadkii meesha waxa waa soo baabaa inta la sleeymad mogt ninka intuu imaaday isagoo sarkaal la sii dalacsiyay oo yani Interpol u shaqeeyay wiilashiisa saaxiib waa ahaan anaga marka si hadii loo dhaano xoogaa waxa nagu jira adeernimo iyo wixii qaraabo min laakiin adeer iska dheena laakiin haddana hooshii ana bariis adeer iyo waxa inaan ana u dambeyn hada ninkii saaxiibkayga Hashimi أفرسمينك يعني شوري dilka jenaraal Ismaaciil kuma uusan ahayn Maxamed Xaaji kaligiis waxa ka qayb galay Haashim oo kamid ahaa shabakada Ilka Case waa kan Haashim oo isagana ka sheekeynaya qaybtii uu ku lahaa dilkaasi wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska waa bari isgooska shaqaalaha wuxuu fadhiyay meesha laga soo doorahay هذن أيضا مركز أو سمنار كما هذا الشيء التلياني من سركال وها مركز حافظ صوب الحافظ يعني كرسو دوغان مركز تحسن sidoo kale Maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay Xaaji Baano oo kamid ah waxgaradka magaalada Marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isaga dhagar qabayaasha la socday banayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka Aabe yani ninkan isaga ah oo Baano Xaaji Baano waa nin orto dhoweyda dhan lagu yaqaan markii isaga laga soo laabtay dabadoonnimadiisa iyo durqnimadiisa aad ka ahaa markuu masaajidka ku soo baxay masaajid yar Ar-Rahma Allah oo ku dhaxyaaris Ramadan weyn ma aha oo wajar ku dhaxyar ko kale waxa jir duruqbada ku dhaxyalo shurufada yar oo duruqbada ay ku tugtaan kii ku soo baxay banaankan ku helna marka laakiin waa la soo confirm gareeyay ninka sala ala culaadi markii dambe waxay kooxda al-shabaab u soo bedeleen Maxamed Xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho oo uu sheegay in waqtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan oo ay ku xigeenna u hayeen Cabdi Majiid iyo Cabdi Muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sanadkii 2012 Maxamed Xaaji markii ugu horeysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen Galadila iyo Mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay Muqdisho kala yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd Felis Macow oo ah xukunsana ku jirta xabsiga dhexe ee Muqdisho ana shakhsiyan galad ninkan aan ku soo gaaray wax yar ana ku soo gaaray khilaafkii jugti wixii dhacday waliya kii kadib wixii dhan waa la bedelay lahay galad aan loo keenay oo galad ilay galada waxaan Allah ila shaqeysta eragina hada asaasta magaalada waa ka saayay wax ka qabta sida dadka loo asaasay oo wuxuu dhahay galad niman jabhada oo isku jir jirteen xilliga laakiin aad ay ku yaqaan aad aqoonina jiro oo guur hada hoostagaan waa laba nin oo active ah ku keenay yiri isla shaqeysta saddexdiin labadii qof ee waqtigaasi la shaqeynayay Maxamed Xaaji hadda galad waxa uu ka baxay al-shabaab halka Mooryaankana la baadigoobayo ay sheegeen booliska gobolka Banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in la soo qabto oo ay kamid tahay sawirkiisa Maxamed Xaaji waxa uu ka bilaabay Muqdisho hawlihiisii dilalka dhagarta waxa uuna Muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dawladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa dadka haldoorka uu ku dilay Muqdisho waxa kamid ahaa jenaraal Cabdullaahi Maxamed Sheekh Xasan Quruurux oo ahaa sargaal ciidan oo waxtar u lahaa dalkan waxa uuna jaranka ku dilay masjid ku yaala Waabari isagoo ka soo baxay salaadii cishaa maadaama uu sheegay in maqribkii uu ku adkaaday dilku sabab la xiriira ciidamada ammaanka oo ka dhawaa aaga
جنرال كان ماشي soo fadhiisana maqribka cishaa wuxuu ku tukanaa marka maqribka ma la dili karo oo degmadu u dhow yahay degmadana ciyaalkan racad ka joogo aagaas isha madow waata marka waa cisho marka niyo dhowr mar isku daynay waxa la isku heshiiyay hadii ninka bubuk la maqlo degmadu u dhowdahay isgoosada day xiraan inta laga baxa ragina la lugayaan hal luuq waxa jir marka mar walba luuqa xeelada la lahaado oo lagu baxsada jir oo la calada wadooyin kala xirxiro oo bajaajta la barbaaray dhalinyarada iyagoo waxooda wataan meesha la soo maray dilka jenaraal quruurux waxa uu ka mid ahaa dhagarii ugu xuslaa uu sameeyey maxamed xaaji ilka case waxa uuna ka hor dilkaasi diyaarsaday laba koox oo bamgacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada Waabari iyo bar ciidan oo ka dhaweyd meesha si uusan gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu taleefanada ka baaqay tuuray bamgacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii u socday oo ahayd dilka jananka masaajidka cisho ku tugtaa marka qorshaha waxa la keenay waa la fariistay shirc anaga waxaan dhahay shirc hoosh adan keenay taala soo qabsan la adan keenay taala marka muqdisho idin ka dhex joogna waxaan wixii hub iyo fan loo baahday diyaar waa laakiin hoosh adan ka wada جنرالك مركا هوش أنا وصل شوتي نيوادا مقدس وكل يخان بدأني سلمان وفاق شوتي سلمان ترى حوير نيو جنرال كرتا حل ملوجا ذكر لون ملوجا ذكر صدح ملوجا هذا إلى لبوا وطه مركا استافكا لبوا واي حل نسقوا نقول بشغلي سقف صدا نقول بهلوك هذا مركا أنا حكوا فكري دقمدا أودو waxaan nahay markan iyo macquul ma degmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah hatta albaabka ay isaga dhufto say barto intay difaac ku galan xabada ay tooraan ay isku qasanto ugaaska wuxuu soo jeediyay degmada hadii lagu dhufanayo kuwa kale oo bundadana gaaray meesha u yaalo jukka day dhacday soo dhaqaajinayaan ayagana ku dhufana marka warkii la isku raacay talada raafiyay dhagaxyadii la keenay oo la soo diyaar garoobay saddex marka loo soo diyaar garoobay ugaaska caawba hal loo keensaday hal qof loo keensaday maxalli jiray jananka hal staff loo wataa bas sayidka iskuul tugtay markii cishaha oo laga bixin rabo waa u baaqayna dhalinyarada markaan u baaqno baaq aan ku wada dhufan labada dhalinyaro in jugta ay dhacdo kadibna xabada lagu xijiyay saas ay ahayd si xabada dhan ay u dhumaanba in jug marka xabada la wada yeerna waqti ciidanka yaa tuuray meeshana ku dhaxqarsantaa la rabay kadib sidii jugtiya dhacday oo ku qaban ugaaska iskool daan soo siiyay الله أن حريص جنرال محمود حاج علي وكمدها سراكيشة عيدمدا أيا كمدها ددك ودلي محمد حاجي وحانا وكدلي دقمدا بوندير حلو جنان كورفا دي قرقيسا waxaa soo gudbiyay wiil mootolaa soo gudbiyay oo dhahay in janana meeshan joogo markaan tagay oo ana shaqada soo fiirsanay dhahayniyo soo fiir dhalinyarada xagga gudeen bonder meesha ugu xarunta badan waa dawladda maxaa la jiray soo fiiri shaqada markaan tagay oo maxaltoole aan soo fiiriyay meesha way adag tahay aad iyo adkaatay waxaanay ninkan general ma okay maxaa anaka banaanka iska fadhiy horkan general ma ana dhahayniyo ku qaldamaysid هروح مؤجده ما جيسان شيء حتى نشاط قال هنا كجنة مع أنا كسركال وادي أكتر كان جن ولا كنت سوف لسنا هل ويلا فريسنا مجرى عنده مش واحد ما بروح عنهم بولي جيدا تاسو كل سنة تاسو سوق خواء بس أوكي واحد مركب قلب عربني قلب وانا سوري قلبيسي صوح قولي الله دسايا صوح أنا يشوري يوحاماني يوجاس شقة إلى شقة جنة ومك ilmo yareer ma kaysan kartid waa kaaga dhaawacmi karaan waa ka dhiman karaan ragii waaweynaad in xaniyooda fuulaama markaan meesha imaanay janankii isaga ahaa jananka waaba fadhiyaaba subaxa waa haddii ani iyo ugaasaan xiranay shuuriina waa u xiran tahay shuuri nooha xag u taalo noohadan ka qaadana aan ku yiri ma nooha ma la bixi karo سينا دينا يحرتان إسقوس بحبدا دعمه والله اللي بيحكي عنك ويري وجفينا دينا الله فن وطورنا عنده بس قانك وخادنا إنه هذا عن خادنا حدا أدنب وحكوا يا جذوه قلي بيحد حاجة أجمرنا جذوه قلي نك شورية كرم نقدامنا ما حدا هنك جذوه أو جسنا جذوه حكوا ترى من كان أو كذا وحصاب بحب جنكي أو جنكي سواته ودركي ملتري وته ما أغاني واحد دقها أوتون سكولو بالجم في عنوته
يمد كلو استاف قوة يعني غروة هكوت أصل صباح وراني مكو صباح إننا نص على نك وين كسكيل علي بس كلام وقت بس إنه هذا الجيران أنا أقول أفلين فقد أنا وصار بهم متى هو النبي مركانك أسفيرين وأصلها فينا يعني هوش أصلا صوب بعد شيء كدوني نوع نقد من كان مش نوع فدين عادي إسكا هذا بس كله سوقاتي إسكا هل استهدي له دارك ودي ما أقول لك ما عن كلامات ما عن كلامات أصلا سدي صوبلانك فديه بوك أنسيني ما هذا اللابتوب صار اللابتوب كان صوت دفي وصار عرري كوفي عن كل قلم روبنا أولي قانا كوفي عن كل قلم وصار عرري xeer ilaaliye xigeenka qaranka maxamed cabdiraxmaan oo gurigiisa ka baxay una socday hawshiisa u khidmaynta shacabka ayay ku dileen waddo ka soo baxda gurigiisa iyagoo kadibna ku baxsaday gaarigiisa balse iska dhigay gaarigaasi markii jidadka oo dhan laga xiray wuxuuna sheegay in xeer ilaaliyaha ay ogaadeen xilkiisa markii ay dileen kadib isaga ayaana gacantiisa ku dilay maxamed xaaji xeer ilaaliyaha bajaajka aan ka soo deganay gaari kama hoostaanay كان ويسون كلا بيكسرين إنك كلا إلى أنا بجنانك ما أتقل ما صار بس أتقل إنك كلا إلى الله أنا فرنا صاحبه ومشغول أنا إنك هذا وتابت ومشغول سيم مرتبط كايس ما يعيش زادل ولا قاعد كرر كذا إنك كلا إنه مركب إنك إلى عليه واحد دلائي إنه إلى عليه أصلا كرر سوى كان هي حاجة أنا جاي أنا قاعد أنا جاي إنك دار دمر مش صاد حاجة طاب نوع كذا بقى استاجي سمياد بش هذا عي كان كلا تقول هاي بقى قبتي صدق أنا جارك صدق صدق أنت صدقتي ومنطقي وفنيستك عيو اسكت درس من سوى عبين مركان وجاز معك دلنا منك جد ولا مرة وقت تين الضوء على أسكار الله عنك وإحنا ملوهين عن ملاء قوسن كدب وحنا قلنا قدرنا كما قدونا نك أو ده يور هبلا ننا تلفون قول له نجي سري أنا قوم بس كمان ندبك ورنك يستجع هنك كلا ولا صارنايا سلوا نافع مركن نك كلا ورنك كلا ما قوسنا الله جد دي بنك فاهم دونا نك حتى إنه وحاها فلولا أنا أقول وديك لنا نفتح كيس سجى دي بنك أقول دونا نك جاري لا صارنا إنه الشقة وحكلها يعني حرر عليه محكمة ونفتح كشغينا أقولني فكتور لكن لما هو sidoo kale dilka taliyihiisa liga wardhiigle ayuu wax ku ogaa inkastoo uusan isagu ka mid ahayn kooxda wax dishay wuxuuse ku doodayaa in kooxda wax dishay u dejiyeen xeelada ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in ragga meesha uu ninkan ugaas yar kale saalax uu meesha moota ku barbaray moota barbarad laga dhigay dabada taloomara hubkii uu soo dahay dib u imaaday ay qaateen furtay موت أواس ماشي حكوا بربرة صالح وحكوا لي عن الموت ماشي حكوا بربرة عبارة مش جوجا رجعت ما تكوت ولا معك سانس عمران تاني مش جوجا دوالي مش سان كسوهن ليه sometimes نوع أركيس خوفك أنا عنا حتى ما نقام maxamed xaaji waxa uu sidoo kale sheegtay inuu wax ka ogaa dilkii aamina oo ahayd baare ka tirsanayd nisa waxayna ahayd qofkii gacanta ku hayay kiiskiisa markan ka horeysay la soo xiray maxamed xaaji aamina meel aan ku arki lahaa ana ma dhaafeen ciid dadka qowl number 1 ka ah xataa ana ogta taas oo fahma aamina rag fara badan horta xaniya qabato oo markii meesha joogtay wax badan ay halaysan waxa kamid ah yar la xukumay oo la dhahay maxamed mare تقال محمد marka milyan qof baar oo soo noqoto in hal uu fiirinayo aamina waxay u tin ku ahayd al-shabaab waxayna dhamaantood u arkayeen qof khatar ku ah maleeshiyaadkooda la xiro isla markaana aan marna gorgortan ka galin shaqada ay qaranka u haysay waxayna sidoo kale caqabad u arkayeen inay aamina waqti dheer joogto baarista iyagoo arkayeen qof marka la soo xiro ay haddana sanad kadib markii la soo xiro isla iyadii joogto ay aqoonsan karto qofkaasi maxamed xaaji ilkaxase waxa uu sheegay in kooxda aamina dishay oo isagu geeyay goobta ayna hagaysay qof dumar oo is yaqaaneen mid ka mid ah dilayaasha waxaana dilkaasi fuliyay sida uu sheegay ugaaska oo qofka sawirkiisa aragtaan oo la baadi goobayo iyo cabdullaahi kuusane oo isagana sawirkiisa aad aragtaan oo la baadi goobayo iyadoo hubka wax lagu dilayna ay watay maryan oo ahaa cabdullaahi kuusane hooyadiis isla markaana xaaska uu qaba salmaan oo kamid ah shabakadan la hayo
kiiska aamina wuxuu u dhacay saan u sheegay hal shay baan ku dirin waa xaqiiq in la soo xeeyay oo la dhac ciyaalka wad geemish maalin cad wax ku cuni kartid in aniga ugaas iyo gruubkiisa aan waday oo aan dhex geemisha aan banaanka kiistaan daawasho soo qabta gudahan ku jira koosane oo koosana markaasna uu hooyadiisa wacay naaga oo sheegaysa arinta waxaana shaki iga jirin aamina qofka kalaaska la fadhiyo inuu gudbiyo hadalkan hatta banaanka joogo ku dhaana aragtida marka ka hesha fasalka la fadhiinaagta wande waxaana say qiyaasaya qofka fasalka la fadhiyo inuu soo kacay soo istaagay oo banaanka uu soo baxay oo koosana la hadlay kadibna ku laabtay yaani tilmaantu bixinay kadibna waa saasay u dhacday dumar waa كوسنا على صح هذا الشيء كتبون صلاوات كتبون كوس يصدق على المرة الصقلين كوسنا وحوك يستجيب الباب لا وضع هو شيء قش يعني لا بقول قش يقول يصدق يكوس على الكاس يمكن أفهم مع تاني كلام تاعنا هتفرق أردن سمي أردن كوسنا وفي سنة halkan waa jaamacadda Soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganaysay Aamina lagu dhex dilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegeen in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambeysay maalinkii lagu dhex dilay Aamino kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhex dilay mid ka mid ah ardaydooda ardayad Aamina waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganaysay kulliyadda shareecada iyadoona jaamacadda Soomaaliya ay ila wadaageen natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay ka hor intii aan la dilin maxamed xaaji ilka xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada ammaanka iyo baraha koontarool ee la badiyay ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjaro gaadiidka kale ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wata isagoo sheegay in hawlgallada noocaasa ay gabi ahaanba kooxdu joojisay sariirka waa balaart sariirka yani waa baabay hada fashilkii suceebka iyo waxa ku dhacay fashil fara badan kadib iyo goobaha oo ciidanka checkpointooda la badiyay inuu waxa jirto marba di ex control aan gaarin xaniyaan lahayn waqti hadda ex control dhaafsatay xataa galmudugna kan wuxuu ku sameeyo masaalan hada masaalan استراتيجية أمنية ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ku qasabtay al-shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhalinyaro boolis u heegana ilaalinta amniga shacabka kuwaasoo ku qasbay maleeshiyada al-shabaab inay isaga firxadaan magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya waxay samaysay wax kastoo ay ku xaqiijinayso ammaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisanimo ee gaadiidka lagu horjeeray gaadiidka sida al-shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan ammaanka wasiirka xogeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa sharaxaya guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dawladda Soomaaliya sida aad ogtahay waxa ay sameyn jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha ammaanka waxa ay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale cidii wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale cidii wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadeynin laamaha ammaanka haddii ay falka ay geystaanna aysan ka baxsan doonin maxamed xaaji ilka xase isagoo macallin jaamacadeeda ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhex dilo wuxuuna ku doodayaa inayba dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo waa iska jirtaa mucjiso aan saxood marka wax dilis dadka ku arkayaan meesha wax ku dishay maalin kala daymaad caadi qalbiga wax markana waa la kala yaacay oo aqaanani isla maalinka birmaanka meesha imaan shaqo cabeen dadka ka shaqeynaa mar dilka dadka kaliya kuma ekayn maxamed waxa uu sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhalinyarada falalka argagixisanimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax ciyaar inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhalinyaro uu ku biiriya al-shabaab kadibna si toos ah u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idin dhigaya ee dhammaystira taasoo ula jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhammaystirayaan marka dhahan ayaan wadan iyo inoo laba wiil oo cusub la soo wadaa aad fiican oo ladan soo jikmay bal shaqo ma bari kartaan wadaas wiil hada qof darwala oo sameeyo shaqo ma bari kartaan ha aan loo keenaa markii
dadka marka dad tababar ahaan dhammaystiran waa laakiin baraatikada male theory ahaan way dhammaystiran yihiin waa la baraa marka shaqadanka markaysana mas waladan keena anagaa wadan shaqada haye waladan baraa okay anaa garaada igu xig oo ku dhigan inuu dhammaystiran meeshan ka dhaha furo kantaroolku waxa xagga istaagaysa aad waa kaas ugu haye bash wala bilaabay ninka maalinka labaad qof kala keena maalinka saddexaad marka active ay noqdaan isku filanti markii loo fadaatam marka magacaan kula shaqeynaa ragaas anad Cabdalla Axmed aan kula shaqeynaa ma yaqaanaan laakiin dadka uu tababarka noocaasa siiyey waxaa ka mid ah wiilkan oo lagu magacaabo Shucayb kaasoo hortiisa dilal ku sameeyey marka waxaa imaadinay how in la baxaa la rabaa oo maxaa la dhihi jiray dooro la aado waxaan dhahay anna markii ilaa hadda ana in lambarleen kala mareynaa koodhe waxaan dhahay lambar iyo macluumaadaan kala mareynaa ani ziyaado kale isoo gelinaan dhahay xamar haddaan ka baxo anoo dadka ayagu micnaha horta waxay ku leeyihiin meeshaasaan aada dheh tahriiba aada dheh inta ka baxaa dheh wax saas camal sheeg laakiinse anna waan dareensanaho adina waxaan isleeyahay maxaa la dhihi jirinay qof waa warkaaga waa la fahmi doonaa mise system waa kaa qaldami doonaa waalid xaggiisa ahaato mise si kale ha noqotoba waxaa la dhahaa inaan soo baxdo maxaa la dhihi jiray meeshaas imaadada oo aad casharo qaadatida muhiim ah waxaan dhahay aan xamarka ma bixi karo haweenna kama bixi karo maalinna kama bixi karo xamar dhexdiisa waxaan dhahay meeshaas hadii tago maxaa la isku sheegaa wadnaan lahayn meesha kama soo qaadaya wax kaloo meeshaas hadda maanta ziyaadeen shaqada qabashadeeda leemahano qabashadeeda marka waxaa marka isku fahanay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiyo cashare oo wax fahansiin wax kale ma baahnaan ahniyo ma fahantay ana waa inaan hadda maanta cashare ay akhrisida wax ay ga dhaadhicisay ani hadda uma baahnaan nahay marka hadii ay si kale ay jirto aan safar ma soo aadi karo xumaana aysan naga noqonayna nahay mis wuxuu dhahay marka kulay waa isku noqdeen kulay ragaas waxa waa rag imtixaan waa isku laabteen marka waxa la horta ninka waa laga wareysanaa barnaamijyada ayaga isla wada hadlayaan saan jeclahay aan ogeyn laakiinse ugu dambeyn markay soo wada fahmeen waxay soo go'aansadeen waxaan dhihi jiray in ay shay noqoto gartaas ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyay wuxuu dhahay maxaa la dhihi jiray inay shaqada iyo qaabkeeda iyo nooc loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiiyaa fahansiina ninkaasaa macnaha maxaa la dhihi jiray oo saaxiibka raacaysa soo maraatig ahaanad u fahmay carab iyo koox la socota oo hogaaminaya maxamed xaajiilka xase waxay isku dayeen inay dilaan hooyo ilmo ku korsanaysay ka ganacsiga jaadka agaarka siliga Ameerikaanka halkaas oo ay markii ay kor tageen hooyadaasi ay dhammaantood u dhixi waayeen bastooladihii ay wateen waa kuwan kooxdii bastooladu u dhixi waayeen oo mid noogu sharaxaya wixii maalinkaas ku dhacay horta intaan aqaano horta waxayna hayeen ilkaas carab axmed iyo aniga Yaxya oo laakiin Ismaaciil saxda markii oo islaantan inta la aadan ka hor Axmed ayaa aan isku xiray ilkaas wuxuu dhahay waxa la shaqeynaysaa ninkan kula shaqeynayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo irgada wax soo dooratay iyo waa liisha noola sharaxay irgada soo dooratay islaantaas ayaan ina aadina rabnaa waayahay ayaa dhahay Axmed ayaa kula jiro dhahay Axmed iyo aniga waa soo aadni marka hore ilkaas ayaa ibar islaanta jaada yagada irgada soo doorato ii sheeg Axmed isna wuu bar laakiin aniga markii dibeysa Axmed ayaa israacini waa soo waaneen waa iimaaneen marna way maqnid ila maqnid oo la way baaqati marna marka aadna oo ida inta markii la helo kadib waa la waanay maalinka dibeysiin oo ugu dambeysii waa la helay habeenay ahayd maqrab markii la soo dugtay kadib meeshii marka tagnay oo irtijaadka kadibna meeshii ayaan howlgalkii in la furiyo la rabi howlgalkii istulooyinkii iyo wixii ka tibeen kadib anaga waa ka soo tagnay waa ka soo cararnay meeshii xoogaa yad buuq yar ka meeshii waa ka soo kala cararnay kadibna anagoo cararayna ayaa ciidamada dawladda dhaxda u galnay horta muddo waan ka soo qaaday waxaan keenay cabirka siliga tala gaarin bacaadi ahayd meesha ku deji iga degeen adig 10 daqiiqo ma soo wareegan asoo qaylahay soo baxay ilkaasa miyo waa baasha ka halawday inuu ka gaaro meesha ka tageen dad ha qaadan koorsa daasho shaqo qaadan haybayaan ay mana diili kartid waa soo qaaday asoo kontrolka ku soo dhacay marka kontrolka waa askarta
mastaaxo wax ku soo dhacay niyo aan horta systemka qabasho ahaan marka aan kuu sheego oo haddii meel kasta laisla aado mise meel kasta la soo maro horta wax aan karsamaynin waxay ahayd anagoo shaqadaas naga soo baaqatay kidibkaas u imaaday ay tahay meeshan cakaaro taqaano ay tahay ya meeshan lagu qaban doonana ay kulley ay tahay madiina salkeeda ay tahay oosan wixii oo qabashadeena iyo intaasna aysan u dhaxaynin wax aan 10 daqiiqo dhameen hataa haddii aan fiirino 3 daqiiqo camal soo cararayna oo orod fiican ah marka meesha imaana bajaajkaasna 7 daqiiqana ma aanan saarnayn si aan hadda aan qiyaasay markii been banaanka laga tago ujeedaa marka umuum isku dar intaas ay baash hooyada ay rabeen inay dilaan kooxdan oo lagu magacaabo Baarliin ayaa isaga xarartay dalka iyadoo ka tagtay carruurtii ay u xamaalanaysay kadib markii ay u baqday nafteeda waxayna iyadoo joogto Turkiga la wadaagtay barnaamijka Gungaar muuqaal kooban oo uga hadlayso wixii ku dhacay maalinkaasi iyo hadda sida xaalkeedu yahay goor saacada ay tahay halka saac oo habeenimo ayaa ragay imaadeen hubaysan الحمد لله رب العالمين وكانوا لهاي هالكام ضحابي حبدي قبتين بسطولة الدبان لي الشيء الدونا مكارف هالكاسي قبتين حبدي مكارف بسطولة دي مكارف كدوي لي ويسي والسوريري انتو ايه قبتي حكمك إلهي ويدعي ويسي بعدين كي لبات مركو نكي كوباد لبا حبود وقبتي نكي لبات uu soo wareegay kii kala imaaday oo labaad halka uu iga qabtay kilida ah bistoladaas waxa la yaateetay xabadii way dhici weysay qadarta rabbi uu liga soo wareegay halka laabta uu iga qabtay weysay sayaniga ay waan maxayr shay ragina ilaamaha abniga ay gacanta u galeen markaas la control ku dhacay aniga markay meesha siiqado korontada iga maqneed ka bacdiya gacanta meeshii leega qabtay markay gacanta meeshii leega qabtay kullay cadkayga dambeeyay targad waxa laga dhignayna ma aqaano marka hadda aan cid targad ka dhigaynin sharciga islaamka kama weynin hooyo Soomaaliyeed oo konton habeen umul ah ayaan ahaa ciyaalkayga meel kuma sheega hadda waxaan biilayay oo markaas aan qof u baxay oo beel iga sugayay hooyaday waayeel ah walaalahay sabool waxa bahaysanin ciyaalkayga yaryariska oo midka uu yar oo markaas umusha aan kula jiray konton habeen ayaan umul ahaa intaas baan idin sheegayaa sharciga islaamka kama weyni dhagarta iyo dilka dadka waxa soo diyaariya koox ay u yaqaanaan istikhbaaraad waxaana kooxdaasi xukuma ninkan oo lagu magacaabo Salmaan kaasoo diiday inuu la hadlo barnaamijka Gungaar balse Salmaan ugu dambeyntii waxa uu qiraal ka hor sameeyay fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya halkaas oo uu ka sheegay doorkiisa al-shabaabnimo aniga waa kamid ah laakiin aqeed ahaan كما مدهن قصب أوجيسان أوركان أوبرة أنا صاحب أنا محمد حاج لي لا قصبي إن أنا كبير شباب أسيقان برنامج كاسل هو وحن وابسنا أو كليا العاهس أو كليا كونكي بس الاستعمال الجيران وحد شق أوقف المجرته هاشم waxa uu kamid yahay shabakada Maxamed Xaaji la shaqeynayay waxa uu qaabilsanaa hagida iyo saaminta goobaha ay dilalka ka dhacayaan waxaana uu ahaa hagii ugu kalsoonida badnaa Xaaji waliba asaga ayaa ku tashkiiliyay inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab marka ninkaasna saaxiibka waa taqaana horena u taqaanay ururkaas inuu ka tirsanaa anaasan saaxiib aan nahay marka hadda ururkaas waaba ka tirsanaa waa la shaqeeyaa marka adigana waxaan jeclaan in kasto saaxiibkayga aad tahay ina arintaas aan kugu tashkiiliyo oo adiga go'aan ka gaartid isla markii aniga go'aan degdeg ma gaarin waxaan dhahay kulli aniga hadda nin iska shaqeystaan xaasna waa qowaa markaas waxaan ka shaqeeyaa footidii ka shaqeeyaa marka waxaan dhahay hawaan waa laga fiican yahay wax hadda aniga arin qidda askari iyo xaas iyo mana aqaano haddana kuma degdegi karo kulay nin xaas qoon waa kulay dib ma loo dhaay laakiin qaabka u malaysa ma qaab kala nooc kale loo shaqeeyaa jirto
oo adoo hooshaada wato ciddaadan aysan ku ogaanaynin oo iska fiican ayaa jirto magaalkaana joogo marka qaabkaas aan ku sheega hadday ku qanciso kuley anaa horta waa kasoo fikiraa si wax u jira ii sheeg marka qaabkuu ii sheegay qaabka amnigu ii sheegay magaalka qaabka looga shaqeynayo hoolasho la qabanayo qaab loo qabanayo waxyaalahaasuu ii sheegay marka faadumo oo magaceeda afgarashada yahay korneelad faadumo ama cosabo waxay u qaabilsanayd shabakadan inay u soo shirqoosho dadka ay rabaan inay dilaan waxayna ballamin jirtay nimanka si kor looga arko iyadoona ka mid ahayd madaniga xamar jajab iyo ururka hooyooyinka qaranka jilcanta iska dhaaf aniga qarax ma ku dhiibanaan hubkan ii qaad iyo hay ma ku dhahay degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacayo in xilliga xalfadda ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilliga ay degmada soo galayaan xilliga ay ka tagayaan sida badan madaxa idii timaado inaa ii soo sheegtid oo maxaan ku ilaa saas oo shaqada ay ila wadadaan rabaa waxaas la ii soo sheeg bis aniga wax kale ay qaban faadumo waxay diri jirtay sawirada dadka ay al-shabaab doonayaan iyadoona qaarkood sukaansi ahaan ula macaamili jirtay markuu ii soo dhigay sawirradii madaniga saasaan ugu dhigay madaniga marka saas ugu dhigay marka waxaa jiray wiil oo madani oo ka gooni ahay sawirkaas oo mootoolo ahay ayaa jiray asna waa u dhigay asigii mootadiisaan u dhigay taargadiisaan u dhigay kaas mayna arkin weli ma arkin waa la joogay ayadoo marka sidii laisku moogyahay haddana waxuu ii soo diray wiilkan oo taliya qaybka ahaa faadumo waxa ay cashirqool u diyaarisay nin iyada ay kala tageen kaasoo ay u sheegtay inay uurur leedahay taasoo aan waxba ka jirin kadibna markii ay ballamisay waxay kor ka tusay koox ka tirsan al-shabaab si ay u aqoonsadaan marka ay dilayaan soo wacay isaga wuxuu dhahay hadaad uur leedahay inay belihu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa ani marka hadalkaas waan ka xanaaqay waxaan dhahay inay belihu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa flagaadan arkaan dhahay marka wuxuu yiri ima maalo ima wiri xaar ku iimaanayna waa ka xanaaqay maalinkaas xaar ku iimaanayna marka habeenkii soo wacay wuxuu dhahay walaalay waa kugu la kaftamahay hadalkaas iska dhaaf iyo wixii oo dambiyoon galnay waxaan ku iraada iska kiyafi xaaladan inay meesheeda ka sii socota rajaynayna oo reerka aan ka doono oo waxaan ku raxmatadan ku geystan aan ka tirtiro marka imo sawiradiisa markaas waa la soo diro taleefankii ku jiray markuu isoo wacay amiirka u sheegay xarisaas jirto wiilkaas maanta aad waan soo dhaxay xafidiis socotaan hay waa arkayna warjiro qarab ku ballan waa arkayna isoo doonay waa isoo doonay ayagana sidii kor uga arkeen xaafadda aad soo sheekaysan waxaan dhawraal warkii hore la wadahay nakala daa in waa ka soo laabtay gurigan u soo laabtay nimankaana way arkeen waxyaabaha cajiibka aan ku ogaaday faadumo waxaa ka mid ahayd inay aaminsan tahay khuraafaad iyadoona sidatay warqadan oo ay ku sheegtay inay ka xijaabayso dowladda inay ogaato howlaha ay waddo taasoo sida muuqata ah sixir iyo wax la halmaala haashim oo ka mid ah qaybta sahanka ee kooxda al-shabaab mar hadda ka hor la xiray maxamed xaaji waxa uu ahaa shakhsigii u dhexeeyey maxamed aabiis iyo kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay inuu mar kasta la xiriiri jiray aabba xaaji una sheegi jiray in wax kasta oo dhaqaalaha u baahdo ay ka caawin doonaan si loo soo daayo xaaji aabiis waxaan dhihi jiray xaalad intay maray meel bis waxaan sheegi jiray inay ardaydii ama dhalinyartii ururka goolmareer dhalinyarta inay wax walba ay garab taagan hadii loo baado qarash hadii loo baado wax walba ana u sheegayna wiilkiisa meeshii lacag hadii loo baado laga helayo dadka caawinayo aan qarinayo intaas aan u sheegi jiray laakiin lacag isku day jiray inay hadii loo baahdo in soo dhiyo lacag lagu furdaaminayo business
laakiin aabbaha dhalay maxamed xaaji oo aan la kulmay waxa uu diiday in ninkan ay wax wada hadal ah galeen isaguna uu iskiis ugu dadaalay sii daynta wiilkiisa. wiilka hadda kahor waa iska jirtay ilmaha la xiray yani wiil raaf uu galay raaf waa iska jiray marka raaf waa la galaa xilmo raaf waa la galaa sida caadiga ah raafta haddii uu gal la yiraahdo inuu soo qabto iyo wax oo macnaha dhacdo fal of sameeyay ama dad sameeyay yutuubay oo yaala geeyay la duubay iyo waxa jiro howlgal guud oo la socdo howlgal guud lagu socdo meelahaas lagu xiray marka dambi maana waxna waa lagu baay وأنا الدم اللي هنا حكم الدم اللي هنا يعني أليسي طيب يا أليسي ما جبت عندك حتى زمان سيدتي maxamed xaaji waxa uu qabaa in horjoogayaashooda aysan ogolayn carruurtoodu inay galaan dhibka iyagu ku jiraan taasna ay tahay tuun ay qabaan balse aysan kor u sheegi karin sababo la xiriira xabsi ay qabaan. isweydiina ilmahoodii aaw ilmahoodii waa laga dheereeyaa maxaa yeelay ayagaa lagu korraadina maraykanna canuga ninka ku korraadin karo nacsu way fikiraan xaqiiqda la kisaas maahan xaqiiqda waxaa tan wadda canugiisa waa ku kulaanaya tusaale ahaan cali jabal ciyaarkiisa dhan way u kala maqan yihiin marka laga rabo wiilkiisa lala duqeynayo. al-shabaab waxay maxamed xaaji ilka xase ku dareen haweenay u ka dhintay ninkii isku qarxiyay hotel ambassador oo lagu magacaabo qaali cabdirasaaq taasoo hooyadeedna ay ku jirto xabsiga dhexe loona xukumay al-shabaabnimo iyo hubhayn. qaybtii koowaad ee barnaamijkeenna gungaar waa naga intaa. qaybta labaad oo aan uga hadlayno siday wax u dhagraan kooxda al-shabaab kala soco habeen dambe isla 8 fiidnimo telefishinka qaranka.